ONLF in ay gudaha gasho waxyaabo badan baa ku kalifayay waqtiga iyada ahayd kow horta marka koobaad ONLF wuxuu ahaa urur gobonimo doon ah han weyn baa ONLF loo qabay urur gobonimo doon ah oo dadkani ay wax walba u waayeen buu ahaa maal iyo naf iyo wax walba oo bini aadanka agtiisa qiimo kale urur ay u waayeen buu ahaa marka dadku aad bay ugu hanweynayeen aad bay noo soo dhaweeyeen geeska gees goboladii aan tagnay oo dhan laakiin dadka de waxa weeye runtii diif iyo dhibaato iyo rafaad iyo gaajo ay dawlad xumadii iyo abaarihii ay sababeen baa ka muuqatay dad ajnabi oo fara badani oo Itoobiyaanka kala ah inay jigjiga ku soo qulqulaan jigjiga kaliya ma aha gobolada iyo tuulooyinka hadda marayaan waxa kaliya u dhiman waxaan dhihi karaa in ay xoolo dhaqatan noqdaan oo geeli ay nala dhaqdaan umba u dhiman khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Egypt muxuu salka ku hayaa Sudan maxaa mar walba aan loo maqlin oo ayna iyadu qayb uga ahayn khilaafka webiga Nile daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tus barnaamijka toddobaadkan waxa martin noogu ah Jabarti Ismaaciil Beynax oo kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Ogaadenya ama Soomaali Galbeed Jabarti waxa uu kamid yahay dhalinyarada hogaaminaysa ururka OYSU oo urur gobonimo doon ah isla markaana hoos yimaada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya loo yaqaan ONLF Jabarti waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii markii uu isbeddelka geeska Afrika ka dhacay ee ururka ONLF uu galay gudaha Itoobiya dhalinyaradii ugu horeysay ee ka caawinaysa wax loo yaqaan transition ama sida ay uga qayb qaadan lahayd Jabarti waxaanu ka wareysan doonaa waxyaabihii uu kala soo kulmay markii uu tagay wadanka ha noqoto dhanka nolosha shacab weynaha ha noqoto dhanka waxbarashada iyo dhanka shaqooyinka iyo waxyaabihii guud ahaanba uu kala soo kulmay waxaan kaloon aan ka wareysan doonaa doorashada Itoobiya ee la rajeynay inay dhacdo ururka ONLF iyo dawlad maamulka dawlad deegaanka iyo qaabka uga qayb qaadanayaan iyo waliba siyaasadda guud ee Itoobiya waxa kale oo aan Jabarti ka wareysan doonaa khilaafka u dhaxeeya Egypt ama Masar iyo dawladda Itoobiya oo inta hadaba socday Jabarti aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh waqtigaaga noo siisay ku soo dhaw barnaamijka tus wanaagay Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay waxa jirta 2018 isbeddel inuu ka dhacay geeska Afrika gaar ahaan Itoobiya ururka ONLF oo markaas Itoobiya muddo la dagaalamayay in uu gudaha Itoobiya u galay horta bal waxa noo sheegtaa maxaa sababay ONLF in ay Itoobiya markaa inay gudaha u gasho mahadsan Cabdiraxmaan ONLF in ay gudaha gasho waxyaabo badan baa ku kalifayay waqtiga iyada ahayd kow horta marka koobaad ONLF wuxuu ahaa urur gobonimo doon ah oo qalin iyo qori labadaba diyaar u ahaa in ay ku halgamaan geeska Afrika isbedel baa ka dhacay isbedel ay ururada mucaaradka ah si guud ahaaneed si gaar ahaaneedna ururadii dhalinyarada sidii qeero oo kale isbedel guud oo ay keeneen baa jiray oo geeska Afrika oo dhan sumad ku reebay taasi markay dhacday marka ONLF waxay go'aansatay in ay wada hadal la gasho dawladda Itoobiya oo Abiy Ahmed iyo rag kale oo la mid ah ay qayb ka ahaayeen isbedelkii yimid iyagoo u aqoonsaday in ururadii mucaaradka ahaa aysan ahayn argagixiso sidii kuwii ka horeeyay ku tilmaami jireen laakiin ay ahaayeen ururo gobonimo doona Eritrea oo ONLF base u ahayd oo
oo iyada laftirkeedu heshiis la gashay dowladda Itoobiya marxalad runtii qalafsan oo geeska Afrika ka jirtay oo qorigu uu runtii iska adkaa in lagu sii halgamo Soomaaliya oo Itoobiya ay gacanta ku hayso Eritrea oo markan dambe ay wada hadal galeen dhinacan kale ee Djibouti marka waxaad leedahay waqtigeedii baa la gaaray su'aashu waxa uu weeyaan qalinkii oo wanalaf ma ku halgamaysaa mise kuma halgamayso taan bay dad badan isweydiinayaan laakiin sababo badan baa jiray inay oo wanalaf ay gudaha gasho waa gartay waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii markaas ugu horeysay ee gudaha wadanka gala adigoo markaa ka caawinayay waxa loo yaqaan transitionka ama markaas ay uga qayb qaadato oo wanalaf maadaama oo aad ahayd dhalinyarada multilingualka ama dhowrka luqadood ku hadashaa afka Oromada afka Amxaariga afka hooyo af Soomaaliga ku dheer iyo af Ingiriiska intaba ma sha Allah markii aad gudaha tagtay aad sababaad ku tagtay maxaa la kulantay horta Addis Ababa waxaan ku ahayn transit oo saacadooda markiiba waan ka sii gudubnaa anagu gudaha gudubnay waxaad kala kulantay gudihii muddo badan baa markaa kugu dambeysay gudaha horta qorshe guud oo muddo socday baan annagoo dhalinyaro ku baxnay markii u horeysay gudaha waxa galay annagoo 4 dhalinyaro ah iyo hawlwadeen kale oo waxa weeye hay'adaha kala duwan ee jabhadda ka socday sida ciidankii oo kale dhamaantan waxaan iskugu nimid Jigjiga صح Jigjiga waxaanu sameynay muddan joognay waxbaan indhaynay waxay ahayd waqtigii uu transition ku socday systemkii Cabdiilay la qabtay Mustafa iyo dawladdan cusubna wali aysan imanin dhul iska bilaa dawlad ah dadkii oo cabsi ka muuqato aan garanaynin dhinac loo socdo waxaanu ka qayb qaadanay inaan dadkii aan dejino sidoo uga qayb qaadatay markaa waxaan uga qayb qaadanay anagu Jigjiga markaan joognay Jigjigaano abaabul ka dhex bilownay Jigjiga abaabul markaan ka dhex bilownay waxaanu sameynay shaqo qaybsi waxaanu u kala hayaanay oo u kala baxnay gobolada deegaanka oo dhan fariin baanu gudbinaynay ah in dadku ay midnimadooda iyo iscafis iyo barnaamij noocaas oo dadku adigu ay niyadu ugu dageysay dadku say markaa idin say u arkayeen markaa dadku oo wanalaf waxay ku soo dhaweynayeen caleemo qoyan meel walba kulay waxa weeye media hawaad kala socotay dadku waxay noo soo dhaweeyeen han weyn ba onalaf loo qabay urur gobonimo doon ah oo dadkani ay wax walba u waayeen buu ahaa maal iyo naf iyo wax walba oo bini aadanka agtiisa qiimo kale urur ay u waayeen buu ahaa marka dadku aad bay ugu hanweynayeen aad bay noo soo dhaweeyeen gees goboladii aan tagnay oo dhan laakiin dadka de waxa weeye runtii diif iyo dhibaato iyo rafaad iyo gaajo ay dawlad xumadii iyo abaarihii ay sababeen baa ka muuqatay marka sidaas oo ahaa gudaha ka waran nolosha dadka nolosha dadku waa mid runtii aad u liidata dhinac walba haddii dhinac waxbarasho ay noqoto hadday dhinac caafimaad noqoto hadday xag ganacsi noqoto dhinac walba waa dad runtii dib u dhacay oo qayrkood laga reebay cid u gurmatay iyo cid wax ka qabatayna aysan jirin waxyaabaha hadda ugu daran waxaa weeye abaaraha ka dhaca deegaanka maadaama uu yahay dhul iska dry ah cid waxa weeye dan kale ma jirto xoolihii dadku qayb ay abaarahaas ku dhamaadeen iyo qayb waqtigii uu halgan ku socday shacabka laga dhacay bay iskugu jireen dadku xoolo ma haystaan cid waxaad arkaysaa hooyooyin isku go'aya oo aan caawimaad degdega markay u baahan yihiin aan helaynin
dabba iska qabsanaya magaalooyin waxba yaraatee dibdamiso oo gurmado degdega ma arkaysid si guud marka la fiiriyana waa wax la samayn karo wax laga qaban karo well-being of water marka la fiirinayo haddii dadku ay helayaan less than 500 cubic oo biyo ah sanadkii qofku hadduu helayo waa accurate scarcity yu meeshaas yaa ka jira innaga marka halkaas waxaynu ka sii hooseynaa in fara badan marka dhibaatooyin fara badan baa runtii ka jira oo haddii dad xilkas ah oo wixii dadkani ay lahaayeen sidii la rabay ugu maamulaya kaalin weyn laga qaadan karo arinta ugu weyn dadku hadda ay aadka uga cabanayaan waa in uu jiro musuq fara badan si guud dhaqaalaha Afrika oo dhan geeska Afrika Ethiopia marka la eego waxa mar walba hoos u dhigaya waxa weeye waa corruption ka weeye in dawlad shacabku wixii ay lahaayeen dadka qaar lagu raali geliyo hebel Cabdiraxmaan si uuna iiga soo horjeedsanin waa inaan tuumba ku furo isagu uu dhargo haddii kale anigu iiga soo horjeedsanaya nidaam ah oo Afrika ay ku dhaqantaa jira kaamil lamida deegaankeena ka jira marka haddii dhaqaalahaas sidii loogu talagalay loo maareeyo waxaan aaminsanahay in wax badan laga geysan karo waxbarashadu waxa weeye waa aad bay waxbarashada deegaanka u liidataa markii aan joogayna hore intaanan dibadda imaninna waan ogaa haddana waan soo arkay waxa weeye fursadihii ay helayeen Etoobiyaanka kale dadkani ma helayaan gabadha dhuxun joogta aan lagaba yaababa inay maadooyinka qaarkood ayna macallimiinba weligeed u helin iyo wiilka private schoolka ka dhigta Addis Ababa abihii uu dawladda wasiir ka yahay isku imtixaan bay qaadanayaan fairna ma aha waa national exam qof walba gala grade 8 buu ka bilowdaa 10 12 mar walba wuxuu galayaa qofku national exams buu galayaa si uu marka dhinac walba waxbarashadii weeye taasi tii caafimaadkii oo dadkii waxa weeye ilaa maalinkan caqliyeysta ilaa maanta qofku markuu xanuunsado harar iyo dardhabi iyo jigjigal iyo Addis baa la geeyay bay ahayd ilaa maantana tabinkii weeyaan dhaqaalihii waasaan kuu sheegay marka dhibaatooyin fara badan baa runtii deegaanka ka jira waxaa jira ajnabi badan oo ku soo badanaya dhulka maxaad ka oran lahayd bal wax ma noo sheegi kartaa way jiraan dad ajnabi oo fara badani oo Etoobiyaanka kala ah inay jigjiga ku soo qulqulaan jigjiga kaliya ma aha gobolada iyo tuulooyinka hadda marayaan waxa kaliya u dhiman waxaan dhihi karaa in ay xoolo dhaqatan noqdaan oo geeli ay nala dhaqdaan unbaa u dhiman iyada laftirkeedu maamul xumida inay ka mid tahay baan anigu fikriyan qabaa sababtuna waxa weeye deegaanka shaqo kama jirto dadku marka ay shaqadu ka badbadato yaa banaanka ay dad ka dalbadaan marka dadkii deegaanka joogay baa bilaa shaqo waxaa jira siyaabo fara badan oo maamul ahaan loo maareyn karo aniga aragtidayda waxa kamid ah waa in uu jiro sharci qofkani uu ku shaqeynayo marka koobaad waa in work permit uu jiro weeyaan qofkani uu san shaqeyn karin la'aantii waa in xafiis uu jira kulli laakiin soo u shaqeeyo kama warhayo yes caqabado way jiraan dhanka Soomaalida tusaale ahaan oo kale dad badan waxaa jira ka cawda in dadka Soomaalida farsamo yaqaankii ay sidii la rabay aynan wax u qabanin way dhici kartaa iyada laftirkeedu la xisaabtan la'aan xagga dawladda iyada laftirkeeda yaan u aaneynaya xaafad walba waxay leedahay wax qabale la yiraahdo oo ku dhex yaala oo dawladda matalaya marka waa in Soomaalida laftirkeeda lagu implement gareeyo sharcigan in la siiyo sharcigaana lagu la xisaabtamo qofkii waajibkiisa ka soo bixi waayana
lagala noqonayo sababtoo ah dad badan oo waxaan arkay ka cabanaya markaan guri dhisanayo ee qof ajaanib ah uu ii dhisayo iyo marka qof Soomaaliya aan ka dhisanayo isku caqabad kala ma kulmayo qofka Ethiopiankii sidii la rabay buu uga soo baxaya laakiin qofka Soomaaliya kama soo baxayo waa arrin u baahan dabagal oo dawladdu loo baahan yahay in arrinka laftirkeeda ay xalliso oo uu jiro la xisaabtan qofkan haddii uu shaqadiisa ka soo bixi waayo waa in sharci qabanayo uu jiro taayada xalkeedu waa mid ah laakiin tan guud ee Ethiopianka waxyaabaha lagu yareyn karo waxa kamid ah in sharciga la siinayo la kontrolo oo dadka deegaanka markii ay sharci wada helaan wixii naga dhimanaada lagu kororsan karo waxa weey marka dadkan waa dad masaakiina saa sheegtay waxyaabo badan bay u baahan yihiin in la caawiyo u baahan yihiin oo nalaf way joogtaa maamulka dawladda deegaanka uu jooga doorasho la soo diyaarinayo Ethiopia oo dhan ururkii EPP oo cusub oo isaguna abi uu hogaaminayeen uu jooga sidee isu qabanayaan marka waxa soo dhan oo bal wax yar wax nooga faahfaahin kartaa doorashadu goormay dhici doontaa masal la qaban doono waxaad weydiisay dhowr su'aalood oo isa saaran marka waan kala qaadaynaa waxaan ku horeynaynaa tan doorashadu goormay dhacaysaa ma la qaban doonaa waxaan aaminsanahay wax doorasho u eg in la qaban doono waxaan u leeyahay markaad fiirisid qaabka xukuumadan Abiy ay ula dhaqantay ururadii mucaaradka ahaa khaasatan mucaaradkii Oromada uu Jawhar Maxamed hogaaminayay iyo Bakale ururkii dhalinyarada ee Qeero oo dadkii kaalinta weyn ku lahaa isbedelkan inuu yimaado Abiy uu kursiga ku fadhiista ahaa waxa ay noqdeen qayb u xiray qayb la dilayba iyo qayb wadanka ka carartay Jawhar Maxamed marfaaqtu uu xiran yahay markaad fiirisid sida loo xasuuqayo shacabka Tigreega oo wali ku tusinaysa inay jirto awood rabta inay wax walba ay muqooniso markaad fiirisid xisbiyada mucaaradka ah laftirkooda eedeymaha ay soo gudbinayaan ama OLF oo Oromiya ha noqoto ama ONLF oo Soomaaliya ha noqoto ama xisbiyo kale ha noqdaane oo mar walba qaarkood waxa weeyay ay ku sigteen inay doorashada ay ka hadaan waxa soo dhan markaad fiirisid waxaan aaminsanahay wax doorasho weegu inuu dhici doono ee doorasho shacabku ay ku qanacsan yihiin oo san dhici doonin sida daraadeed taasi waa mid weeyaan ma aaminsani anigu inay doorasho ka dhici doonto marfaaqti waxaan aaminsanahay in laga doodayo percentage-ka aynu ku guuleysanayna hadaynu EPP nahay imisuu noqon doonaa yes wuu ka duwanaan doonaa logically waxa weeye aqligii TPLF-ta ee 99.6 ama 100% baan ku guuleysan oo barnaamijka hadda ka hor aan ka hadli jiray hadda ka hor 2015 ha kaas uu ka yara duwanaani mucaaradka oo kuraas bay heli doonaan fara ku tirisa laakiin waxa weeye si guud ahaaneed waxa soo bixi doona xisbiga EPP ba meel walba ka soo bixi doona waana wax qorsheysan markaad fiirisid marka waxa leedahay waa nin dooran maxaa u leeyihiin doorta miya nin dooran maxaa u leeyihiin doorta maxaa Soomaalida xisbigan kale di weydiisay EPP dadku wala fara badan bay ka muujinayaan xasabada dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay xisbi raba in uu ka takhaluso nidaamkan federalismka dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uu maalinba uu raba in yar inuu ka bedelo tusaale hadda ma jiro xisbi EPP marka la yiraahdo oo u taagan Ethiopian Prosperity Party deegaanka xisbi waxa ka jiray la yiraahdo SDP deegaanada kale oo dhan marka waxay iskugu keeneen EPP marka xisbigan hadda talada hayay waa xisbi BB ma aha xisbi Soomaaliya markaan saa leeyahay
waxaad ka dhex arki kartaa halka iyada ah inay bilaabatay in wax badan la bedelo maarafacti sheekada hadda socota waxaa weeye legacy-gii TPLF yaan tirtiraynaa dhinaca kale haddaan u dila tirtiro legacy-ga TPLF tay iyagu u socdaan waxaa weeye dastuurka in ay dastuurka ay wax badan ka bedelaan because legacy kale ay TPLF ay haysata ma jiro maxaa ka mid ah waxa good legacy ma jiro okay tusaale xisbiga EPP waa xisbi Ethiopia oo dhan ah Soomaalidu waxay ku doodayaan in ay miskii baan fadhinaa bay leeyihiin Central Committee-ga Ethiopia oo dhan imisaad ka noqon kartaa adigu marka in another words waxa weeyaan Ethiopia oo dhan yaa go'aan ka gaaraysa wixii ku saabsan deegaankeena heekada let's say percentiga ay ka noqon karaan hadda percentiga ay ka yihiin baarlamaanka Ethiopia waa imisa meesha dadku ay dhowr boqol haystaan 23 qof baan iyagu ka haystaan marka waxa weeye waxa go'aanka gaaraya BB oo hadii hadda 10 qof oo raba inay wax u codeeyaan adigu aad ku iyo 10aysid waxba kama bedelaysid marka taas aan u leeyahay marka waxa weeye dad badan waxay aaminsan yihiin in step by step ay rabaan in ay ka takhalusaan nidaamka federalismka waxa loo sii gobol xaadanayo waxa kamid ah qodobka 39aad dhigaya waxa weeye ay ka tashiga qowmiyadaha in isagana meesha laga saari doono sababtoo ah waxaan ku lahaa legacy-ga Tigreega narrative-kan ah waan tirtiraynaa dadka badankoodu waxay aaminsan yihiin in uu yahay dastuurkan bedelaynaa marka dastuurka hadii la bedelana waxa weeye waxa meesha ka baxaysa wixii ay qowmiyaduhu ku wada joogeen ay xaq u lahaayeen aan u gudubno siyaasadda guud ee Geeska Afrika Soomaalidii waxaad moodaa inay go'aansadeen Ethiopia in lala dhaqmo si ay noqotaba ha ahaatee oo bal Ethiopia wixii laga heli karo xaqii lagu lahaa sidii looga soo ceshan lahaa saameyn badan baa jirta Ethiopia waxaa jira khilaaf ay soo baxay oo hadda ay kula jirto iyadii u dhaxeeyay iyadii iyo dalka Suudaan khilaafkaas xaguu salka ku haya Abdurrahman si aad horta faham guud aad uga heshid adiga iyo dadka barnaamijkan daawanaya khilaafka u dhaxeeya Suudaan iyo Ethiopia oo ah khilaaf siyaasadeed bal waxaan rabaa inaan sawir guud aan marka koobaad aan ka siiyo si aad u fahantid waxa meesha ka socda koow horta dhulka la isku haysto waa Al-Fashaq region waa dhul 250 ilaa 300 kilometer square lagu qiyaaso waa dhul fertile oo ku fiican waa dhul dihin oo ku fiican wax soo saarka webi baa dhaxmara oo u sahlaya macnaha beerihii in dalagii looga faa'iideysto waa dhul resources badan leh waa dhul resources badan yahay waa gartay marka taa horta waa koow laba marka la fiiriyo sohdimihii ama borderkii ay xuduudihii ay sameeyeen gumaysigii reer Yurub dhulkaasi wuxuu hoos tagayaa Suudaan laakiin waxaa degan dad Ethiopian oo ma fahanti marka caadi ahaan waa dhul Suudaan kamid ah borderka markay okay anigu dadka aaminsan kamid ma ihi sohdimihii ay gumaysigu sameeyeen sababtoo ah Oromaarig aniga dhulkayga Ethiopia loogu daray raali kama ihi taasaan marka waxaan ku leeyahay sohdimihii gumaysigu ay sameeyeen marka loo fiiriyo yes hadda sharci marka internationally Suudaan buu kamid yahay international dhulkaas Suudaan buu kamid laakiin dadka degan waa Ethiopian dadka degan laakiin waa Ethiopian waa gartay taasi waa mid khilaafkan marka wuxuu soo socday taniya intii dawladihii reer galbeedku ay xuduuda sameeyeen waa gartay wuu soo jiitamay weligiiba waa mar walba waa laga heshin jiray laakiin midda ugu muhiimsan waxa weeyaan
waqtigii TPLF melas uu hogaaminayay Ethiopia Sudan uu hogaaminayay Umar al-Bashir heshiis ay galeen baa jiray heshiiskaas markaa isaguna muhiimad gaar ah leh heshiiskaasi wuxuu ahaa Ethiopia waxay ogolaatay in dhulkan sidiisa loo daayo oo aqoonsatay in uu kamid yahay Sudan laakiin waxa lagu heshiiyay dadka degani in canshuurta maadaama Ethiopian Ethiopia siiyaan iskuulaadka Ethiopian ay tagaan marka xuduudkan inuu ahaado mid iska furan oo iska dhoobo waraari ah sax halkaas marka wax marayeen Ethiopia marka sabab baa keentay in ay sidaas samayso oo u ogolaato ay u aqoonsato dhulkan alfashaqe inuu yahay dhul ay Sudan leedahay waxay eegaysay geeska Afrika oo dhan waxayna rabtay xulufo inay ka samaysato xulufada marka waxay rabtay in ay Sudan ka ciyaarto kaalin muhiim ah marka si aad ii taageertid dhulkan adigan ku aqoonsanaya taageerada marka ay ka rabtay ugu muhiimsan wuxuu ahaa webiga Nile waana u soo geli doonaa webiga Nile laakiin ii sii wad waa isagii Ethiopia uu isbedel ka dhacay isbedelkaasi wuxuu saameeyay geeska Afrika oo dhan tusaale ahaan oo kale Eritrea iyo Ethiopia colbay ahaayeen markii isbedelku dhacay Eritrea iyo Ethiopia waxay noqdeen saaxiib dhow siyaasadii TPLF ee ku saabsaneed arinta Sudan oo kale Abiy uu ku gacan sayday ujeedadana waanigi ku sheegay waxay ahayd webiga Nile in uu helo dawlad kale oo ku taageeraysa Ethiopia qorshaheedu uu ahaa Sudan marka saaxiib dhow bay saa u lahayd waxa dhacay marka isbedelkii kadib Abiy waa isagii xagan aaday Eritrea la heshiiyay not only that webiga Nile arinteedii ya isagu muna dirin xitaa wasiir arrimaha dibadeed isaga toos wuxuu uga tagay Addis Ababa wuxuu tagay Cairo Sudan marka Cairo markuu tagay horta waxay isaga iyo Egypt ku soo heshiiyeen in dawladda Mareykanku ay dhexdhexaadiso Sudan marka meesha way ka baxday sababtoo ah Sudan Ethiopia isgarabsadaan waxa weeye webiga Nile arintiisa wax badan laga weydiiyo ee Sudan rabtay waxba laga ma weydiin marka toos iyaga aaday iyaga isku tagay Mareykan bayna go'aansadeen inuu dhexdhexaadiyo Sudan marka halka way ka xumaatay not only that hada Tigreega waxa ka socda dagaal shacab badan lagu xasuuqay dagaalka waxa hogaaminaya gobolka Xabashidu marka wuxuu markiiba claim gareeyay oo uu dhul ku qabsaday Tigreega dhinacan kale Benishangul labadaas ba caadi baahan marka xadku gudbay waxay dhaheen okay TPLF wixii ay samaysay khalad buu ahaa dhulkana waa dhul aan anagu leenahay iyo Sudan oo markii hore Ethiopia xarash u sii haysay halkaas marka dagaalka Sudan iyo Ethiopia وصلك كوهايا يس خلاف ولي وجري لكن ولي هذا كهر حبط لا يسكت ما بيحن خطرتيسا marka ka waran xagee saameynta khatar military ma la isula baxay oo dagaal qarxayaan dagaal isu bootaynayo labada wili waxa weeye macado dad 4-5 awaal la sheegaya in ay ku kala dhinteen laakiin wili dagaal weyn muusan dhicin Ethiopia iyadii baaba waxa weeye meel badan ay wax kaga furan yihiin gudaheedii oo mucaaradkiya Tigray region oo ay la dilgareynayeen marka Sudan wili waqti isku ma aysan helin marka khatarteedu waxa weeye hadii xal loo heli waayo xal siyaasadeed hadii loo heli waayo yes khatarteeda ay leedahay inuu dagaal ka dhacana waa macquul aanu soo noqono marka aan aadna dhinaca
masar oo ka dhawaajis webiga Nile in muddo hadda Itoobiya iyo masar oo isku haysteen Soomaali badan oo waxaa jirta markay noqoto siyaasaddaas markiiba masar taageero ku boobay maadaama oo aan nahay dad cilaaqaad badan lahaa Itoobiyana ay yihiin waxa la yiraahdo cadawgeena koobaad webiga Nile xaguu salkiisu arintiisu khilaafkiisu bal noo faahfaahin waxaa jirta Suudaan oo ka sokaysa Egypt u dhaxaysa Itoobiya webiga Nile uu maraa maxaa keenay marka in masar oo ka shishaysa Suudaan ay ka cabato Suudaan oo u dhow oo iyadoo u dhaxmarana aysan uga cabanaynin khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Egypt muxuu salka ku hayaa Suudaan maxaa mar walba aan loo maqlin oo ayna iyadu qayb uga ahayn khilaafka webiga Nile koo horta webiga Nile sawir guud baan rabaa inaan ka siiyo webiga Nile waa laba webi oo isku biira waa Blue Nile iyo White Line isku dar webiga Nile wuxuu dhaxmaraa 11 wadan oo Afrikaan ah Blue Nile wuxuu ka soo bilowdaa kilka axmaarada ee wadanka Itoobiya Benshangul buu dhaxmaraa kan kale laakiin wuxuu ka soo bilowdaa Victoria Lake oo ku yaala qayb Kenya qayb Tanzania qayb Uganda iyo waliba isagoo ka sii dhaxbaxo oo ilaa Uganda Congo iyo Tagaab aad iyo aad marka labada webina waxa biyo badan Blue Nile webiga marka White Line-ku iyo Blue Line-ku waxay ku kulmaan waqooyiga Khartoum Suudaan marka halka laba webi ya isugu yimaada iyadu mar walba biyo la'aan ma hayso taasi waa mid horta ta Suudaan iyada waxaysan ayna aadaysan ooga walwalsanayn talabaadna waxa weeye waxay ogtahay mar walba Egypt oo ka sii shisheysay inay shaqada u qaban karto iyagu ay meel dhaxa ay ku jiraan oo Egypt ay uga baahi badan tahay Suudaan mid waa mida Itoobiya iyo Suudaan Itoobiya iyo Egypt marka halkuu ka soo bilowday khilaafkoodu waxaa jira heshiis caalami markaan ku leeyahay gumaysigu waxyaabihii heshiisyadii uu sameeyay weeyaan oo la yiraahdo Anglo-Egyptian Treaty oo ahaa 1929 treaty-ga waxaa ku qornaa in high stream countries-ka sida kuwa wadamada webiga xagga sare xigay in aysan waxba sameyn karin ilaa oo ay ogolaansho ka helaan kuwa downstream-ka degan kada macnaheedu ay tahay kooba ayna Egypt ogeyn Ethiopia ma dari karto waa treaty-ga ay Egypt wadato weey dhankan kalena Ethiopia de wabigani Lake Tana oo kilka axmaarada ku yaalo ka soo bilowda xaq baan u leenahay weeyaan iyagana doodoodu ma garatay sax waxa meesha marka laga dhisay Benshangul Gumuz oo almost xuduudda Suudaan iyo Ethiopia biyo xireen la yiraahdo Grand Ethiopian Renaissance Dam hydroelectric dam weeyaan marka korontada laga dhalinaya mara fact waxa laga dhalinayaa koronto aan qeyrul caadi ahayn waxa lagu wadaa sanadkii inuu soo saaro 6,000 oo wagaha oo electronic oo electric yaa la rabaa inuu ka faa'iido way soo socotaa marka Ethiopian marka horta ka hadlaya faa'iidooyinka ugu jira sax hydroelectric power 250 milyan oo qof
korontada siin karaa horta quwad abaa laga dhalinayaa lambar 2 wuxuu noqonayaa ila dhaqaale oo dad fara badan ay ka shaqo galaan waxaa ku baxay lacag 4.55 billion dollar iyo ka badan ah dhaamka kaliya biyo xidhka kaliya in la sameeyo yes leegaasi wuxuu noqon doonaa mid looga faa'iideysto dalxiiska oo halka laftirkeeda iyadana dhaqaale kale uu Ethiopia ka soo galo wuxuu noqon doonaa meel laga waraabiyo aagaas oo dhan beeraha ku yaala faa'iidooyinkaas Ethiopia ugu jira sida magacaad ka dheexan kartid renaissance waxa weeye waa dib u dhalasho ama waxa weeye Ethiopia cusub marka taasi waa Ethiopia dhankan kale ee Egypt baan marka aadaynaa Egypt boqolkiiba 80 nolosheedu waxay ku xidhnayd taariikh ahaan iyo ilaa iyo maantaba webiga Nile haday noqoto biyo nadiif ah inay ka helaan oo biyaha la nadiifiyo biyaha la cabo iyaga laftirkoodu koronto ay ka dhashadaan beerahooda oo dhan Ethiopia waa dhul cagaar ah laakiin Egypt waa dhul dry ah marka beeraha ay beertaan oo dhan waxa lagu waraabiyaa webiga Nile waxa way opposite bay isku yihiin marka labadan qolo waxay kala wataan Ethiopia marka waxa ku motivate gareynaya inay ku dhiirato faa'iidadaas Egyptina waxa ku motivate gareynaya in ay khilaaf ay ka dhaliso arrinkan waxa weeye nolosheedii oo dhan baa iyadana ku xidhan khilaafku halkaas uu salka ku haya waxa ugu awood badan ee ay wadatana waxa weeye heshiiskan caalamiga laakiin Ethiopia ma saxiixin Sudan iyo Egypt iyo Ingiriiska saxiixay bahalkan wabigana waxa weeye xaq u siiyay Egypt macnaha anagu malihi xaq bay u leeyihiin laakiin tiritigaasay caalamkii la hoostagayaan marka marar badan baa la damcay in wada xaajood lagu dhameeyo laakiin meesha ugu muhiimsan la isku dhaafilayahay hadda waxa weeye daamkan biyo xidheenkan imisa sana lagu buuxin karaa weeyaan su'aasha meesataala Egypt waxay leedahay sanado badan ha lagu buuxiyo 10 sano 15 sano iyo ka badan ha lagu buuxiyo in yar ha lagu leexiyo Ethiopia 5 sano ugu badnaan 7 sano taa macnaheedu waxa weeye tusaalahaan oo kale hadii hadda 5 sano ama 7 sano ay Ethiopia go'aansatay inay ku buuxiso agriculture-ka ama wax soo saarka Egypt boqolkiiba 50 uu baaba'aya marka arintaas waxay keentay marka khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal almost gaaray 2018kii Ethiopia waxay ku eedeysay in waxa weeye jabhado ay Eritrea ay keentay Egypt sidoo kale project manager-kii dhanaa ee daamka 2018kii baa la dilay markii hore waxa la yiri waa la dilay markii dambe dawladda Ethiopia waxay sheegtay inuu isagu uu isdilay marka wax badan baa halkaana isku murgan marka hadii aan xal loo helin oo aysan xal gaadhin labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin waxay qarka u saaran tahay inuu dagaal ka dhex qarxo haddaan inagu Soomaalinahay marka taageerida labada dhinac okay inaga marka horta siyaasaddu saaxiib joogta malaha idana joogta ay leedahay inaga deegaankeena oo kale maanta waxaan si sharci darro uga tirsanahay Ethiopia taa macnaheedu waxa weeye waa inaan la qaybsan karno wixii ay haystaan صح marka 250 milyan waa koronto ka badan Ethiopia tiradeeda laban laab iyo waliba waxa weeye iyo ama 2/3 ka badan weeyaan waxa lagu wadaa inay import waxa weeye export garayso oo
ay internationally ay meelaha kale ay u kala dirto marka inaga of course faa'iido waxay noogu jiraysaa in korantaynta leeg Ethiopia ay ka dhalato macnaheedu waxa weeyaan haddaynu helo dadkeedii in dadkeenuna ay qayb ku yeeshaan in laga raysto dhuxushii faraha badnayd iyo geedihii la gubayay in waxa weeye de mar hore su'aalaad weydiisay baa jirtay dhibaatooyinka dadkeena haysta maxaa kamid ah qofku hadduusan cunto haysanin biyo nadiif ah una haysanin koronto una haysanin waxbarashadii wax macno ay sameynayso ma jiro qof gaajaysan waxa ma baran karo qof aan koronto haysanin way adag tahay inuu sidii uu rabay uu wax u istari gareeyo marka of course Ethiopia Egypt awal badam weelahayd waxba inaga ma soo gaari jirin laakiin Ethiopia hadii ay suurta gasho waxa laga yaabaa in 1% ha noqdo uu inaga wax uu inaga soo gaaro iyadoo de waliba de for laga yaabaa inay free noqoto jabarti aad ay u mahadsan tahay macluumaad fara badan iyo akhbaar fara badan oo dabcan dhalinyaradeenna iyo dadkeena ay u baahnaayeen ayaa soo bandhigtay waxaana filayaa inay maaragtay ay aad kugu mahadcelin doonaan daawadayaal taasi wuxuu ahaa jabarti Ismaaciil Baynax oo kamid ah dhalinyarada deegaanka Soomaalida Ogaadenya ama Soomaali galbeed oo aan ka wareysanaynay guud ahaan siyaasadda Geeska Afrika gaar ahaanna waxyaabihii uu kala kulmay markii uu ku noqday deegaankaasi Soomaalida inta aanu barnaamijkan dib ugu kulmi doono aniga iyo dhamaanba Fuad Ismaaciil oo dhanka farsamada naga caawinaya aad baan idinkaga mahadcelinaynaa aniga jabarti iyo Fuadna waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo